waxaan ku salaamayaa magaca Rabbiga iyo badbaadiyaha Masiixa. waxaan jeclahay inaan sii wado arrimaha soo wada bariyahan oo ku saabsanaa barashada Ilaahay ee laga baranayo kitaabkiisa quduuska ah. maanta waxaan jeclahay inaan la wadaago Ilaahay ereygiisa waa kuma. Ilaaha aan caabudno ee runta ah wuu hadlaa weligiisna wuu jiray, hadalkiisana wuu la jiray weligiis. إله عبدنا ما هن إله السنة ما on هدلين on روح لهن إلهي والروح ونهض له إلهي هذا الكيسة الروح ديسة يأسجع ومت سيد كتاب خدوك ونبراي كتابك بالله وقلي هذا وهو الرأيه كتابك خدوسك وإلهي نوجش كنا وحول بنت سجين كهر ونوجش كنا عيو وحيني أقرنا عتب كيسكوات آيدكو إلا سدح سيانو دول استاغو أرنتا أن كهلايو ماشي كسو بلابتي يسيد إلهي ونوبراي آيدو كواد وحوليها إيبي بلوغي إله سمدا يقولكو أبوري دولكو نقاب ملهين وونا مرنا قدعرنا مولكو دول جوغي والروح إلهنا وحو كدول رغاقي بيها إلهنا وحو يري إفتينها هذا إفتين بانا هذه saddexdan aayad Ilaahay wuxuu nagu sheegayaa aayad kood wuxuu nagu sheegayaa Ilaahay bilowgii samadii dhulku inuu abuuray asaga inay ka yimaadeen wax walba waxaan jiro oo dhan asaga inay asal ka yimaadeen. aayadda labaad waxay noo sheegaysaa dhulku inuu saqaab lahayn una marnaa gudcurna inuu moolku dul joogay ruuxa Ilaahna inuu ka dul dhaqaaqay biya. halkan waxaan ka aragnaa aayadda kood waxay leedahay bilowgii Ilaahay inuu abuuray samadii dhulka. aayadda labaad waxay leedahay ruuxa Ilaahay inuu ka dul dhaqaaqay biya. آيات سدحات وحلادة إله وحير إله هذا المركز كده هل كان وحكم إذا سن إلهي يروح يسا يأرجيس دنيا مركو أبوره إبي السجا أرجيس يروح ديسا إله مذا أيها هاي أبور كان قيبة كوادقاتين إله أرجيس ونوليه روح ديسا ونوشا السجن ونوليه وإلهي سدح بسكم وجي وإله كل جيسا ومت كلا أنجري إلهي مركي آذنها وحول بقو أبوري وحول بقو وناكسنين سيدا كتاب كقر إلهي وحوليه مركي وح أبوره وحوليه بلايق وحول بقو وناكسنين إيه بمركي والدنيا الدياري أنتو سن آذنها أبور الكهر أي وحول بقو بعناين الدياري مركي والدنيا الدياري إيه بيت أيو مركي الدم بوحو أبوري آذن قفك وهري وإيه أبوري آذن وآذن وكسعنا أبوره كلا أردن وكبدلناه وإلهي سيقوني أيو أبوري سيدا كتاب كقرن آذن إبي وحكسوا قاضي عيد أيون الكسوا قاضي نفتي نلش أيون كافو في إلهي وحداي أركتدي إذا عندك أبو رأي ولا سيدا كتاب كقرن إلهي مركي آذن وأبو رأي أيو وحود دورتين وأبو رأي حاوه هتنا واي إبي وحيري نينكو مو نكسين وكليس هذا وحنو سمينا مد كحبون وعاوسة نينكي ناكتا هلكس أي كيمادي إلهي إبها أنا أبورتي markii uu aadanaha abuuray wax walba oo kale uu siiyay wax walba oo kale uu habeeyay beer ceedan la yiraahdo ayuu u diyaariyay oo qurux badan halkan ayuu xiriir deganaada waligiin xiriir ayuu la lahaa Ilaahay xiriir ayuu la lahaa Ilaahay maalin walba way isla hadli jireen si kafal isku hadli jireen Ilaahay wuxuu doonayaa inuu abuuro anaga inaan la sameysano xiriir gooni ah oo ka duwan abuurka kale xiriir la lahayn inaan la sameysano ayuu noo abuuray ay aragtiisu naga abuuray annaga markii Ilaahay sidaas ayuu waxaan ugu nahay dad gooni ah waa inta aadanaha oo dhan dadka ku abtirsada aadan eebe markii aadanihii waxa soo dhan uu diyaariyay ayuu wuxuu yiri hal amar kaliya siiyay bal inay adeecayaan in kale hal amar kaliya siiyay wuxuu dhahay wax walba oo kala sameeyo wax walba oo kala cuna wax walba oo kale meeshan ku noolaada beer ceedan laakiin halkaas geedaha cunina ha u dhawaanin huwa hada cuntaan wuxuu dhahay eebe waa dhiman doontaa هذه وحي سمايان شيطان آيات دفصدي جيتكي إلهي وكحرمي ويعنان جيتكي إلهي كحرمي مركي عنان بنا آذنكي إلهي وإله وناكسناه هل أيوه دي إلهي آذن هو دي وحلهي ما حسن آذن مركي وجيتك عني حاوى يا جيتك عنتي آذن وحبيك أسيان هو آذن ويعنان حاوي آذن مركي جيتك عنان وأبي صدق خياني شيطانكي إلهي آذن أيوه يمد ويدي آذن مركب وإسقريين قويين أركان وإسقريين ويدونتين كتابك أيا كود أقرسين كتاب حسولان وحانية عن هذا عن كوشة وكرمان كتابك كود أقرسين كتاب سي إسكا وأقرسين كتابك وهذا عدي إلهي مركي
aadan iyo xaaway qaawanayeen markii hore markay isqariyeen oo ilaahay markay arkeen waqti ilaahay u yimid oo uu la hadli lahaa way ka dhunteen waxay isku dayeen inay ilaahay ka cararaan sababtoo ah way dambaabeen dambiga wuxuu keenaa ceeb inay qaawan yihiin is arkeen ilaahayna way ka carareen way ka dhunteen ilaahay su'aasha ugu horeysay oo bin aadanku u weydiiyo aadanaha u weydiiyo waxay ahayd aadan xagee baad joogtaa ayuu ku yiri ilaahay wuxuu ku yiri xagee baad joogtaa aayadda waxay leedahay aayadda waxay ku qoran tahay halkan cutub 3 rabbiga ilaahay wuxuu yiri ninkii wuxuu ku yiri xagee baad joogtaa waa cutubka 3 aayadda 9aad weey ilaahay aadanihii markii ay dambaabeen oo ay isqariyeen ilaahay hadalka ugu horeeyay weydiiyay waxay ahayd xagee baad joogtaa xagee baad joogtaa ilaahay maalintaas aadanaha su'aashaas uu weydiiyay ilaa iyo maantay adigan imaqlay aniga wuxuu weydiinayaa xagee baad joogtaa waa ina isweydiisid maanta xagee baad joogtaa adiga maanta xagee baad joogtaa waa ina isweydiisid waa ina meesha joogta ka soo tagtid oo aad u timaadid abuurahaagina u timaadid oo dambiidaada u qiratid ida aadan dambiidu muu qiranin ee wuxuu dhahay ilaahay markuu weydiiyay uu dhahay maxaa sameysay wuxuu yiri geedkii ayaan cunay waayo naagti adiga ay siisay ilaahay ayuu aad ku soo rogay wuxuu dhahay naagti adiga ay siisay ayaa geedkii siisay anigana waa cunay xaawana waxay dhahay aweesada ay qiyaanayso qofka kale ayuu dambigiisa dusha uga saaray dambigooda ma ay qiran ma ay dhihin waan kugu dambaawna eebo nacafi ilaahay maalintaas ayuu xaawa iyo aadan habaaray iyo abeesadii shaydaanka ahaa hadalka marka ulijeedka aan ka leeyahay waxa waaye maalintaas inuu eebbi ballan qaaday inuu ereygiisa shaydaankii bini'aadanaha qiyaanay inuu ereygiisa u soo diri doono oo uu madaxa ka burburin doono aayadda bilowgii cutubka 3 waxaan idinkaga bilaabayaa marka aayadday waad ka habaarantahay dha ilaahay marka wuxuu sheegayaa wuxuu sheegayaa ilaahay shaydaankii oo iska soo dhigay abeesada soo dhex galay ayuu ilaahay la hadlay aayadda 3 aayad cutubka 3 aayad 14 rabbiga ilaahay wuxuu abeesadii ku yiri waxaan aad samaysay aawadiis waad ka habaaran tahay xoolaha oo dhan iyo dugaag kasta oo duurka jooga waxaanad ku socon doontaa boggaaga ciid baanad cuni doontaa maalmaha cimrigaaga oo dhan ilaahay aayad 15 wuxuu leeyahay oo calaad baan idin dhex dhigi doonaa adiga iyo naagta iyo farcankaaga iyo farcankeeda oo madaxaagu burburin doonaa adiguna ciribtiisa burburin doontaa ilaahay wuxuu leeyahay adiga iyo naagta iyo farcankaaga iyo farcankeeda ayaan colaadii dhex dhigi doonaa madaxaagu burburin doonaa ilaahay markaa shakhsi buu ka hadlayaa qof buu ka hadlayaa madaxaagu burburin doonaa adiguna ciribtiisa burburin doontaa halkan ilaahay wuxuu ku cadeynayaa in naag farcankeeda uu shaydaanka madaxa ka burburin doono eeba meeshaan markii ugu horreysay ayuu wuxuu cadeynayaa inuu ereygiisa u soo diri doono dunida ilaahay markii aadanaha ay dambaabeen aadan iyo xaawo ay dambaabeen oo inay qaawihiin ay arkeen neef ayuu u gowracay uu ceebtooda ku asturay sida kitaabka ku qoran kitaabka wuxuu leeyahay dhiig daadin la'aan dambi dhaaf ma jiro waayo kitaabka wuxuu dhahaa dhiigga waa nolosha dhiigga waa nolosha noloshana waxaa loogu kafaaro gudaa dhiig marka dhiig aan eed lahayn waa in la daadiyo aadan iyo xaawo markii ugu horreysay dambaabeen ilaahay wuxuu u daadiyey neef ayuu u gowracay cooradoodii ay geedaha ay ku astureen ayuu neefkaas harag neef ayuu ku asturay xoolihii arrintu markii way soo socotay ilaahay marka ilaa iyo bilowgii wuu hadli jiray ilaahay wuu hadlayay hadalkiisana wuu la jiray kitaabka Yoxana la yiraahdo cutubka 1 ayaa si waxay u cadeynaysaa waadax ah qofkii wax garanayo oo ilaahay uu fahamsiinayo oo qalbiga u furaayo Yoxana cutubka 1 waxay ka bilaabanaysaa bilowgii waxa jiray hadalka cutubka 1 aayadda 1 ay aqrinaa aayadda 1 ilaa waxay aqrinayaa ilaa waxay aqrinaa 4 kadib waxay aqrinaa aayadda kale 14 cutubka 1 aayadda 1 waxay leedahay bilowgii waxa jiray hadalka
هذا الكون وحو لجري إله هذا الكون وحو أها إله إساقو إله بو لجري بلوغي وحوال بوحا لغي سميه حقيس أو وحي اللي سميه لما سمين إساق الآنتيس إساقو وحا كجرت نولشون وحا يد نور كدتك إلهي وحو نوشيغا ماشان بلوغي إنو هذا الكجري هذا الكون إنو إله لجري هذا الكون إنو إله أواي إلهي إيه هذا الكيس وامد إلهي هذا الكيس لبا إله معهن إلهي هذا الكيس أدون معهن marka ilaahay bilowgi hadalku jiray hadalku wuxuu la jiray hadalku wuxuu ahaa ilaah waayo aniga hadda aan hadlayo nuur hadalkayga aniga cidna kala saari kartaa ma jirto aayada saddexaad ilaahay wuxuu leeyahay wax walba waxa laga sameeyay xaqiisa ilaahay wax walba abuuray wuxuu ku abuuray hadalkiisa aayada aan soo marnay oo bilowgi eebu wuxuu leeyahay markii ugu horreysay uu hadlay waxay ahayd uu dunida markuu abuurayay wuxuu dhahay iftiin ha ahaado waayo ilaahay hadalkiisa wuxuu leeyahay awood eebu wuxuu leeyahay marka wax walba waxa laga sameeyay xaqiisa ereyga eebe hadalkiisa ay wax walba ka sameeyay wixii la sameeyay lama sameeyn isaga la'aantiis ilaahay hadalkiisa la'aantiis waxba lama sameeyn ilaahay hadalkiisa ay wax kasta ka sameeyay haddaba waa inuu ogaatay ilaahay iyo hadalkiisa inay laba kala ahayn ilaahay hadalkiisa waa mid asagii hadalkiisa waa mid sida aniga hadalkayga aadno kala saari karin ilaahay hadalkiisana cid kala saari karta malaha aayada afraada waxay leedahay isaga waxa ku jirta noloshuna waxay ahayd nuurka dadka hadalka waxa ku jirtay noloshuna waxay ahayd nuurka dadka aayadii ugu horeysay aan soo qaatay oo bilowgii markuu ilaahay wax buuray iftiin ha ahaado dhahay hadalka nolol ku jirta noloshuna waa nuurka dadka iftiin ha ahaado uu noqdo waxaas ha noqdo uu noqonaa ilaahay wax walba badday dhulkii cirki wixdan ha ahaadana dhahay hadalkiisa awood ayuu leeyahay ilaahay marka asaga nolol ku jirta noloshana waa nuurka dadka waayo ilaahay hadalkiisa ayuu naga abuuray anaga waxna iftiiminayo waa ilaahay hadalkiisa inkastoo anaga aan dambiiliyaan oo rabbiga aan ka soo dhacnay oo xumaan ay nagu dhex jirto haddana ilaahay ereygiisa uu noo soo diray si aan iftiinkiisa dib ugu noqono intaana iimaanka leh way dareemi karaan wayna arki karaan ilaahay iftiinkiisa inuu ku dhex jiro aayadda isla cutubkan aayadda 14 ayaa waxay leedahay hadalkuna jir buu noqday oo waa in dhex joogay oo waxaanu aragnay amaantiisa taas oo ahayd amaantay u ekeyd tanwiilka kaliya ee aabaha ee nimco iyo runka buuxa ilaahay hadalkiisa wax kasta ka abuuray oo wiligiis jiray oo la'aantiisa uu waxba abuurin oo wax walba uu ka abuuray ayuu ilaahay 2000 iyo dhowr sano ka hor wuxuu soo diray caloosha maryama sidii hore uu ballan qaaday kitaabka quduuska ma ahan kitaab kala hadlaya ma aha ilaahay kitaabkiisa quduuska 66 kitaab way sheegayaan kulligood مسيحة كتاب وسون كل حجر الملاها وحسي الشيء جدي مسيحة كتاب وسون كجر الملاها مركا إلهي وحليه مركا هذا الكي أي جر نقضي وذن حجوج إلهي هذا الكيسي ولجس جري أو الدنيا وكابوري أو ولجس لجري أيو مريم على وش الأسودري مريم على وش أيو هذا الأسودري وهي مسيحة نينا اسكو تي كمرلان شهو بنا أذن كمرلان عيد كمرلان مسيحة عيد لقى ما أورن أسقى أبوريها وأي بهذا الكيس وحول بكا أبوري وأود بدنا أيو جبر فكرة أو مريم اللي يرادو أو لما كون يدور سنة كهر نولد أيو على شيء صدري سيد هراء وبلنقاذي هذا الكاس جر أيو نقضي وأنا ده جوج مسيح الدنيا يمد سيد أنا يادي عم دنيا نقول لنا هاي بين آذن أيو كرش لكن مرنا بقى آذن ما هي مسيح آذن معه آذن الشغل كملها وصار أحمر كليه هاي ده وصار أحمر وال إله قابكس وقت لقل وإله قرشيس وحوي نجو أيوه نوس ودري بدباديس إنه نوس ودري ملك جسر عليه أو بالوين منوس ودري بدباديس إرجيس ونوس ودري حنو نقد نجو كله سيا أقرنا أو نطابنا أو لا هذا أو عن حرر ولا سميسون أو أنا وعرر إيه بمركا مسيح مركا وإله قادر كأه أو أنا أبوري وي وإله قادر كأننا نعبور إله قادر كأننا نعبوري ويل أيو نقضي بين آذنه دنيا أيو كلش كهر نوجري كذب وجري واحد استعماله يبي هذا الكيس واحد استعماله جر بين آذن واستعماله جر كاس واي جر كالشيء أو أنتوا صرنا كهر نوجري جر كاس واي جر كالسلعي جر كاس واي جر كسكتلابت الوقت بي جركاسنا waa jirka isku talaabta ka saraka marka dambe awoodda wuxuu ku saraka masiixa ruuxa quduuska oo ereygiisa oo ilaahay awoodiisa
masiixu maalintii isku talaabta lagu qudbaayay ruuxdii eebbe ma dhimato ilaahayna ma dhinto masiixa maalintii isku talaabta lagu qudbaayay wuxuu dhahay aabow ruuxayga ayaan gacantaada u dhiibayaa ilaahay ruuxdiisa ma dhimato masiixa waa ruuxdii iyo ereyga eebbe wey marka taas marka waa kitaabka ayay marka faahfaahintaas oo dhan ay ku qoran tahay waxyaabahaas oo dhan ay ku qoran yihiin hadda tusaale ahaan kitaab la yiraahdo waxa jiro Colossians oo si cad u qeexay masiixa qofku uu yahay Colossians dadka la hadlay aayadahan la hadlay waa dadka ilaahay aaminsan waay muuminiinta oo taas dadka muuminiinta ilaahay aaminsan waay laakiin qof oo dhahay ilaahay sidaas ma awoodo ama ilaahay saas muxuu ula dan leeyahay ama ilaahay sidaas muxuu ka waday ama ilaahay muxuu sida aniga aan jeclahay u sameyn waayay sidaan ama sida diinteeda ay qabto muxuu eeb u sameyn waayay dadka dhahay ilaahay ugu talgalaaydiis ilaahaydiis wuxuu ugu talagalay dadka oo iska hoos mariyay ilaahay oo ilaahay yiraahdo ilaahay waan ku maqalnay hadalladaada waana rumaysanay laakiin eeb uu noo sheegay wuxuu dhahay kuwa aqligooda isticmaalayo wuxuu dhahay oo isarreysiyo ilaahay wuxuu dhahay waan hoosaysiinaya Colossians kitaabka la yiraahdo oo Rasuul Pawlos waxyigi Pawlos Colossians kitaabka la yiraahdo cutubkiisa koowaad aayadda 15 ayaan kaga bilaabayaa 15 ilaa iyo waxa waaye ilaa waxaan ii wadayaa ilaa iyo 20 15 ayay ka bilaabanaysaa kitaabka Colossians la yiraahdo waa cutubka koowaad aayadda 15 waxay leedahay isagu waa suuraddii ilaahay aan la arki karin oo curadka uunka oo dhan masiixa ilaahay suuradiisa waa aan la arki karin ilaahay erigiisa ayuu jir u soo yeelay ilaahay lama arki karo ilaahay waa ruux masiixa noo sheegay ilaahay wuxuu dhahay waa ruuxda lama arki karo qofka anaga jirkeena caadiga awood u maleeyay aan ku aragno ruuxda eebbe waa ruux qudus waa ruuxda wanaagsan waa marka eebbahaas aan la arki karin ay suuradiisa waa aan la arki karin waa oo curadka uunka oo dhan curadkooda waa wax walba uu ka horeeyay masiixa aayadda 16 waxay leedahay waayo wax kasta isaga uumay waxyaalaha samooyin ku jira iyo waxyaalaha dhulka joogaba waxyaalaha la arki karo iyo waxyaalaha aan la arki karinba haday yihiin carshiyo ama sayidnimo ama madax ama amro wax walba isaga uumay oo loo uumay aayadda 17 waxay leedahay isagu wax kasta uu ka horeeyaa oo wax kasta isaga isku haystaan oo isagu waa madaxa jirka kaas oo kaniisadda oo isagu waa bilowgii iyo curud kuwii dhintay ka kacay si uu uga horeeyo wax kastaba aayadda 19 waxay leedahay waayo waxa aabaha ka farxisay in buuxnaanta oo dhamo ay isaga ku jirto aayadda 20 waxay leedahay inuu isagu wax kastaba xaqiisa kula heshiiyo isagoo kula nabday dhiig isku talaabtiisa haday yihiin waxyaalaha dhulka jooga ama haday yihiin waxyaalaha samooyin ku jira haday yihiin waxa soo dhan inuu ilaahay kula heshiiyo ayuu u soo diray erigiisa waayo annaga oo dhan waa dambawnay dambi ayaan ku wada dhacnay waana ka soo dhacnay ilaahay amaantiisa sidaas ayuu ilaahay wuxuu ugu soo diray erigiisa in erigiisa dartiis aan ku noqono daahir oo sidaas aan boqortooyadiisa ku galno dambi dhaafkiisana aan ku helno ilaahay haddii fursadaas ay ku dhaafto oo hadiyadaas ay ku dhaafto iska diidid ogow waxa weeye khasaaradii ugu weynaa kugu dhacday masiixa wuxuu leeyahay haddii qof uu dunida iyo waxa yaal oo dhan uu helo uu naftiisa lumiyo maxay u taraysaa waraa qofkaas qof muxuu ku macnaha masiixa wuxuu dhahay qof muxuu ku bedeshaa naftiisa wuxuu ku bedelanaa wax walba dunida yaal inuu naftiisa badbaadiyo qofka marka haddii dunidan iyo waxa dul yaal dhan lagu siiyo adiga maalin walba kamid ah dunidan waa isaga tagaysaa wallahu baataas dunidan maalinta aad ka tagtid eebe wuu kula xisaabtami doonaa ilaahay wuxuu kugu xisaabtami doonaa ilaahayna wuxuu hortagi doontaa adiga oo dambiile ah ilaahayna boqortooyadiisa qof dambiile ah ma geli karo sidaas ayuu ilaahay marka awood daradaas ilaahay uu ogaa inaan dambiileelnahay inaan awood lahayn uu ogaa sidaas ayuu ilaahay erigiisa daahirka noogu soo diray in asaga aan ugu badbaadno haddaba masiixa ma injiilku ka bilowday waqtigii injiilka 2,000 sano kahor masiixa ka soo bilowday ilaahay masiixa dadkii hore oo ilaahay aaminsanaa reer bani israa'iil iyo nabiyadii hore oo dhan ilaahay way rumaysnaayeen masiixa inuu imaanayo dad baa su'aal isweydiiyay barbar waxay weydiiyaan waxay la yiraahdaan masiixa wixii dadkii ka horeeyay oo macnaha muuse badbaadin miya masiixa maalintii aadan oo dambiga galay iyo xaawo ayuu ilaahay ballan qaaday inuu erigiisa uu soo diray cid alle ciddii bartagaas ilaahay taqaanay ilaa waqtigaas oo ilaahay hadalkiisa u yimid way rumaysnaayeen masiixa inuu imaan doono badbaadiyaha asaga ayaana masiixa
maalinta ugu dambayso dunidan gabagabada asaga ayaa gabagabayn doona dunida asaga ayaana shaydaankana u diri doona xabsi daa'imka cadaabta ah shaydaanka iyo dadka raaco dhan kuwa raacana waxa way kuwa masiixa inkiro way kuwa masiixa inkiro dambigooda ayay ku dhimanayaan sida uu kitaabka sheegay marka kitaabka zabuurka aayadda 2 iyo 2 waxay leedahay sidan kitaabka zabuurka nabi daawud aayadda 2 cutubka 2 aayadda 1 ila 2 waxay leedahay bal quruumuhu maxay u caroodaan dadkuna maxay ugu fikiraan waxaan waxba ahayn boqorada dhulku cilbi u taagiin taliyaashuna waxay u wada tashadaan rabbiga iyo masiixiisa iyagoo leh silsiladahooda aan goyn oo xarkahoodana iska fogeyno dadka oo bini'aadanka maadaama dad bini'aadanku dhan dambiilayaleen dadku waxay isku dayayaan inay masiixa iska fogeeyaan rabbiga masiixiisa inay dhahaan silsiladahooda aan jarno xarkahooda aan goyno iyo noo soo dhawaanin oo dadka inay diimankooda aaminaan ayaga ee waxyaabihii ay samaysteen bini'aadanka ay macnaha ay tala saartaan ay yiraahdeen anaga ayaa camaladeena samaysanayno waxaan anaga samaysan ilaahay uguma baahnin inuu nasiiyo afis iyo dambi dhaaf iyo hadiid uguma baahnin anaga gelin anaga waxaan samaysanayno marka kitaabka ishaaciya nabi ishaaciya masiixa uu ku horeeyay meedal uu qiyaaso 700 sano meelahaas kitaabka ishaaciya marka aad ayuu wuxuu sheegaa masiixa uu ka sheekeeyaa aad uu ka sheekeeyaa wax walba oo masiixa marayna wax walba oo masiixa marayay waqti uu joogo wuxuu dhigi jiray waa inuu qorniinku ahaado qorniinku ka horeeyay wax alla wixii ku qornaa masiixa laga sii sheegay ayuu sameeyay masiixa ilaa isku talaabta ilaa iyo dharkii macnaha dharkiisa markii macnaha laga qaadanayay markii la garaacay macnaha oo karbaashka lagu sameeyay noloshiisa oo dhan masiixa waxay ahayd qorniinka rabbiga oo ilaahay uu sii sheegay hadalladii uu sii sheegay oo dhan ayuu masiixa kaamilay kitaabka quduuska sababtaas ayuu ahdiga hore ahdiga cusub yahay ahdiga hore waa wax sii sheegista masiixa ahdiga cusubna waa kaamilidii wax la sii sheegay marka kitaabku uu sheega ishaaciya cutubka 17 aayadda 14 waxay u qoran tahay sidan haddaba rabbiga qudhiisa ayaa calaamad idin siin doona bal ogaada gabar bigrada baa ureysan doonta oo waxay dhali doontaa wiil oo magaciisana waxay u bixin doontaa Immanuel ilaahay halkan wuxuu noo sheegay Immanuel waa fasirkeeda waxa lagu fasiraa Immanuel waxa la ilaahay baa nala jooga ilaahay baa nala jira aayaddan waxay leedahay 700 sano ka hor intuu masiixa dunida imaanay dunida u soo diray erigiisa ayuu aayaddan waxay sii sheegaysaa wuxuu leeyahay rabbiga qudhiisa ayaa calaamad idin siin doona bal ogaada gabar bigrada baa ureysan doonta oo waxay dhali doontaa wiil magaciisana waxay u bixin doontaa Immanuel waa rabbiga ayaa nala jooga marka ilaahay wuxuu sii sheegay marka dadkii hore dhan way ogaayeen masiixa waa dad badan ilaa hadda way sugayaan waxay leeyihiin masiixi kii hore yimid ma aha masiixi way inkirsiin yuhuudda dadkan reer bani Israa'iil qaarkood way inkirsiin waxay leeyihiin masiixi kii yimid ma aha mid kale sugayaan intiina muslimka ahna waxay dhahdeen masiixa ma aha masiixa nabi oo iska caadi ah waxaan oo anaga aaminsanahay oo dhan iyo masiixa inuu badbaadiyaa waxaasna idinka waa idin martaba idinka waxa idin leeyahay waa nin iska caadi ah masiixa oo mucjisooyinka ilaahay siiyay bas خلاص لكن سيدا اسمها مسيحة سبب أيو يمد سببتا وأنا إسويدي سببتا مسيحة كو أبلان وقول شيء لابا أود لها وتدخل أنت أسولو لسيناي كو بكاء وعافيناي كو إنها لا إنها وفيقاي كو عريانك أو لها صعدة ووحول بمعجسة وسميناي إلا مركز دبنا طلبت الوقت بي إلا مركز دبنا السماء الوقت سببتا أسول نقناي سببتا وشيطان كوديلاي وحاصلا وأنا إسويدي أود أو هالكاس قف معناها أو سيدا أوداس أولاً هل نبي معناها أوداس أن معناها أنتو كاينة قف كنا سويديزو أوداس أن وحكا كاينة وايا أساق يا ربي مسيحة معهن الضون معهن والله أود إلهي أنا كسي أود لهم أساق إلهي وايا إلهي هذا الكيس ومد إلهي هذا الكيس وأسكمد إلهي هذا الكيس وأن كلا صار هذا اللي وحين نقولنا هذه ينفت هذا أنا أسكال سرت هذه نفت هذا لو قف هذه أسكري كرت إلهي هذا الكيس وكل لي كرت على وقف مركا كتابك إشاعية آيات سجالات عتب سجالات آيات لحد أيضا وحسي شيء مسيح كشكنزة مسيح عد وياه
مسيح عدو ياه مسيح عدو ياه وحكى بركة كتابك قدوسك مسيح عدو ياه ديمن كلا يعدد كلا ومسيح كده بيكوما شيء كران وهدي أرور ربتدوا هدي كلا دي وحي هدي يستدوا أسكت على ساركتا هدي يكون طالع مكاس عتب سجارات عيد لحد وحلا هذا السلام waayo waxa inoo dhashay ilmo waxa la insiiyay wiil oo boqornimadu garbihiisa saarmi doonta oo magaciisana waxa loo bixin doonaa kayaabka leh iyo la taliye iyo ilaah xoog leh iyo aabaha daa'imka iyo amiirka nabadda waxa inoo dhashay leeyahay ilmo wiil yar ayaa inoo dhashay sida caadi qof binaadan uu dhashay waxa la insiiyay wiil yana sinay ilaahna sinay waxa la insiiyay wiil boqornimadu garbihiisa saarmi doonta magaciisana waxa loo bixin doonaa kayaab kale la taliye ilaah xoog leh iyo aabaha daa'imka iyo amiirka nabadda ilaahay hadalkiisa ilaah xoog leh waa ilaahay hadalkiisa awood u leeyahay xoog u leeyahay ilaahay erigiisa oo dunida ka abuuray awood u leeyahay waa ilaahay waa aabaha daa'imka waa amiirka nabadda waayo nabad oo san ilaahay hadalkiisa erigiisa bixin karin cid kale oo dhiibi kartaa male ayat tabaad waxa leedahay boqornimadiisa iyo nabaddu way badnaan doonaan dhammaadna uma lahan doonaan عرشي داود يبقر تويديسا إن لسيات كي أو عدالة حقنما لجوسي هايو هاتن يتن يولجت أو تن وحسمين دون قيرة الرب يعيد ماذا أرنتان بقر نمديسا ولجت أي هندو تا بقر تويدي عرشي داود ويا مسيحة جرهان فملك أوكي من معناها ويهود ورا يهود أو عرشي داود إبا يا داود هذا كره بلغ هذا حدا عرشي هذا waxaa ku fadhiisato mid oo arshigaadana wuxuu noqon doonaa boqortooyo daa'ima ilaa asagoo ka sheekeena masiixa silsiladaas marka qaabkaas ay u soo socotay marka eebe hadalkiisa awood u leeyahay ilaahay hadalkiisa waa amiirka nabadda waa aabaha daa'imka waa ilaaha qaadirka aayadda cutubka 57 kitaabka ishaaciya yiraahdo cutubkaas haddii aad akhrisatid waxay u sheegayaan masiixa ayuu wuxuu uga sheekeynayaa si dhabe masiixa dhibaatada uu mari doonay رفاتك أمر دوني سيدا وأنا نوجو معناها نقول لها ونوجو نقضي وانقلك الدنبية وأنا نوجو نقضي عتب كان كشكينا عتب كان أمرك واحد اللي أغنيا مسيحة يو كشكينا لبعتدي ونومر يعني إشاعة كتاب إشاعة عتب كنت نسدحات آيد وجوه رسالة كتاب الله بها وحيلها بليا ورك يرجع الرماستين ويا قعنتي ربي قالوا موجي waayo isagu hortiisu ku koray sidii geed curdan ah iyo sidii xidid dhul engegan ka soo baxay oo kale isagu suurad iyo qurux aynu ku fiirino toona ma leh oo qurux aynu ku jeclaano laguma arko isaga waa la quursaday waana la diiday oo wuxuu ahaa nin murugeed oo xanuun bartay waana la quursaday sidii mid dadku wajiga ka qarsado mana aynan xurmeen sida runta ah wuxuu xambaartay xanuunyadeennii wuxuuna qaatay murugadeennii laakiinse waxaynu ku tirinay mid balaayo ku dhacday oo ilaah dilay oo dhibaataysan laakiinse waxa isaga loo dhaawacay xadgudubyadeenna waxaana loo nabareeyay xumaatooyinkeena edbintii nabaadiinadeena dushiisa ku dhacday dildilaaciisina waynu ku bogsanay dhamaantay sidii idin baynu u halawnay midkeen waliba jidkiisu u leexday oo rabbigu wuxuu isaga dul saaray xumaanteena oo dhan isaga waa la dulmay waana la dhibay laakiinse inaba afkiisa ma uu kala qaadin isaga sidii wal la qalayo baa loo kaxeeyay oo sidii lax ku aamusan kuwa dhawarta ka xiira hortooda isaga afkiisa ma uu furin isaga dulmi iyo xukun baa lagu sii qaaday haddaba baliya qarnigiisa ka mid ahaa oo u maleeyay in isaga laga gooyay dalkii kuwa nool xadgudubka dadkayga daraadiis ayaa isaga loo garaacay xabaashiisina waxaa lagu daray kuwii sharka lahaa dhimashadiisina mid taajir ah inkastoo uusan dulmi samaynin khiyaanana aan afkiisu ku jirin habase ahaatee waxaa rabbigu raalli ka noqday inuu isaga nabareeyo waxuuna isaga ku riday xanuun markaad naftiisa qurbaan dembi ka dhigtid ayuu arki doonaa farcankiisa cimrigiisuna waa dheeraan doonaa oo rabbigu doonistiisana gacantiisa ku liibaan doontaa cutubkan oo dhan wuxuu ka sheekeynayaa dhibaatadii masiixa uu maray waxyaabihii uu ilaahay erigiisa uu anaga noo soo diray uu noo maray anaga kitaabka quduuska akhriso oo adiga iska u akhriso ilaahayna bari ilaahayna waxaa ka barisaa inuu indhaha qalbigaada kuu furo si aad u garatid ilaahay hadalkiisa nool si aad u garatid ilaahay hadalkiisa nool waayo ilaahay hadalkiisa wuu nool yahay haddii aad doonaysid ilaahay inuu ku badbaadiyo oo badbaadadiisa iyo aad rabtid inaad qaadato hadiyadiisa ilaahay wuxuu kugu casuumayaa hadalkiisa ilaahay erigiisa oo adiga kuu soo diray daraadda 2000 sano ka hor iyo ka hor xataa si uu jiray
وجري لو كنا سنكر أي دنيا من المسيح وحول qorshayaashii uu rabay asaga inuu sameeyo oo ku talagalka ahaan uu sameeyay markii uu hawshii oo dhan dhameeyay masiixa maalintii ugu dambeysay isku talaabta markii lagu qodbay waa dhamaatay masiixa qorshii oo dhan way dhamaatay isku talaabta markuu ka soo saaray kacay 3 maalmood kadibna si guul ayuu ku galay meeshii uu ka yimid asaga oo jirkeena oo kala bini'aadan wato kitaabka quduuskana wuxuu noo sheegaa masiixa inuu yahay rabbigeena inuu yahay nabi inuu noo yahay rasuul inuu noo yahay saaxiib inuu noo yahay wadaadkeena sare inuu noo yahay macbudkeena inuu noo yahay jidkii aan maraynay inuu noo yahay noloshii dhameed inuu noo yahay asaga iftiinkii inuu noo yahay kibistii aan cunaynay inuu noo yahay indhihi aan wax ku arkaynay inuu noo yahay biyihii aan cabaynay inuu noo yahay masiixa rabbigeena iyo badbaadiyaheena qaadirka ah saaxiibkeena qaaliga ah oo wax kasta oo kale ay tahay in asaga aad ka hormariso noloshaada waayo masiixa wuxuu dhahay boqortooyada ilaah iyo xaqnimadeeda doondoona wax walba oo kale waa idinku dari doonaa marka qof walba oo idaawanaya ama codkay u gaarayo waxaan kugula talinayaa masiixa cid kale ha kala tashanin nafsadaada iyo ilaaha ku abuurtay la sheekayso nafsadaada eebo waxa tirada aniga isma badbaadin kari eebo aniga dambiile ayaan ahay eebo adiga gacantaadan ku jira badbaadi ilaahay uu ku soo duwaya markaas jidkiisa nabadda oo masiixa barakada leh weligaana masiixa kama shalayn doontid haddii aad baratid oo asaga aad la socotid weligaa kama shalayn doontid marka gabagabadii waxaan idinkugu soo gunaanadayaa haddii aad doonaysid inaad ilaahay hadalkiisa aqbashid sida kitaabku qoran wuxuu leeyahay haddii aad qalbiga ka rumaysatid afkan aad ka qaratid inuu masiixa yahay rabbiga iyo badbaadiyahaaga waa badbaadi marka kitaabka akhriso ilaahayna qalbi ula hadal oo daacad ah ilaahay inuu ku badbaadiyo ayaan kaaga baryaa ilaahay qof walba oo dhageysanayo qof walba aadanana waxaan jeclahay jidka aniga aan maray oo jidka runta ah oo masiixa ayaa wuxuu dhahay aniga ayaa jidka runta iyo nolosha jidkaas aniga iyo inta kale oo rabbiga uu soo hanuuniyay jidkaas way mareen walaalayaal waxaan ka baryayaa in ilaahay aad ka barisid inuu jidkiisa kugu duwo ilaahayna ducooyinka dhan waa aqbalay ilaahay wuxuu dhahay haddii aad ii soo noqotaan oo qalbi daacada ay ugu soo noqotaan waan idinka aqbalayaa ducooyinkiina waanan idin badbaadin doonaa marka intaas ayaan idinka tagayaa rabbiga ha idin barakeeyo dhammaantiin mac salaam